السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر شبكة laga bartay cilmiga technology guud ahaanteeda loo yaqaan Tajmaal waani Amiin Cabdiya waxa aan ku jirnay oo aan baranaynay oo aan ku dhex jirnay koorskeena cusub ee halka baro technology-da oo maanta qaadan doona casharkiisii labaad oo laba cashar hore u sameynay maanta insha Allah waxaan qaadan doonaa oo casharkeena ciwaankiisu yahay sidoo uu shaqeeyo computerku iyo qaybaha iyo systemyada uu ku shaqeeyo waxaanan idinka raali gelinaya haddii aan leedmo waxa aan ka maqnaa hawada macnaha aanan kooraska cashar ka sameyn in ku dhow 2 toddobaad maybe 2 toddobaad iyo badh ay tahay intaana hawl ayar aan ku maqnaa oo shaqo ah ayaan idinka raali gelinayaa laakiin insha Allah waan dhameystiraynaa kooraskeena cusub halka baro technology-da aan bulshada ugu faa'iideynayno ugu horaantii waxaan ku qaadan doonaa mawduuceenan ama casharkeena cusub 4 qodob afarta qodob oo ay kamid yahay sida uu shaqeeyo computerku waa maxay systemka uu ku shaqeeyo oo ay kamid yihiin systemyada Windows 10 Mac OS Linux marka insha Allah waxaan ku qaadan doonaa hadii ugu horeyso oo ugu hor bilaabi doonaa sida uu shaqeeyo computerku waxaan casharkii hore ku soo baranay in ay aan ku baranay qaybaha uu ka kooban yahay computerku ay kamid yihiin RAM-ki motherboard-ki system-ki CPU-gi hard disk-gi dhammaan cases-ki dhammaan marka waxa la isku xiriiro ee hardware-ka la isku wada xiriiro markiiba wuxuu ku weydiinayaa markuu hard disk-gi soo kiciyo computerki oo loogadii shirkadda aad ka soo iibsatay system-ka uu soo kiciyo markiiba wuxuu ku weydiinayaa amba haddii system ku jirana systemkii uu kugu jiray tusaale kale Windows 10 markuu kugu jiro amba Windows 7 oo kale kugu jiro Windows-gii ayuu ku soo kicinaya markaas ayuu shaqeynaya laakiin haddii system ku jirin oo isku wada xidhan hardware-kii amba wixii dusha ee motherboard-kii CPU-gii oo system ku jirin kuma soo kacayo mana dhaafinayo xaggii loogada shirkadda salaajligeed maxaa loo baahan yahay marka inaad ku install gareyso waxaad ku install garanaysaa oo isagana aan casharaanta noogu jira chapterada Windows-yada iyo Windows-ka sida Windows 7 Windows 10 Windows 8 Windows 9 Windows 7 Vista XP dhammaan iyo sa loogu install gareeyo isagana inta badan kan dalka lagama isticmaalo Soomaaliya hadaan joogno waxa inta badan laga isticmaalaa dibadda Mareykanka iyo Canada iyo England inta badan uu ka caan yahay oo loo yaqaan Mac OS sana insha Allah sawiraantiisa inta si doono kan Linux walaal kan inta badan waxa isticmaala dadka experience ama expert computeriska ah oo iyagu qaybta security ku takhasusay say wax uga taageerayaan lab uga dhigtaan oo wax macnaha ay ku barbartaan software-ka loo sameeyo sida website loo taageeray sida computer loo macnaha loo xado datadiisa sida shirkad loo xado datadiisa password-ka wireless-ka soo loo jabiyo waxa ku barta oo insha Allah isagana qaybihiisa iyo systemyadu noocyada kale leeyahay aan si doono oo free open sources ah waxaan ugu horaantii qaadanaynaa waa maxay Windows 10 Windows waa shirkadda waxa soo saarta loo yaqaan Microsoft oo iska leeyahay ninka ugu maalqabeeysan adduunka loo yaqaan Bill Gates shirkaddan waxay soo saartaa Windows-yada ay kamid yahay Windows 10 8 9 8.1 7 Vista XP systemyadaas oo computerada lagu install gareeyo kaasoo aad inta badan xataa markaad computer la soo hadal qaado systemka haddii aan Soomaaliyeed systemka waxay noogu jiraya inta aan hore u soo sheegnay kamid yahay 7 8 8.1 9 sometimes 9ka waa laga dulbooday laakiin isagana waa la helaa laakiin computerada Microsoft wali kuma shubin iyo Windows 10 afarta system mid kamid ah ayaa ku jira computerada dalka yimaada systemyadaasna waan ognahay inaan ku isticmaalno inaan macluumaadkeena ku kaysano buugaagta kamid tahay waraaqadaha assignment-nada jaamacadda oo kale fiidiyoyada aqoonta ay koorsaysan halka baro technology-da oo kale filmaanta game-ka aan ku kaydsano systemkan oo ay Microsoft aan soo sheegnay inay Microsoft soo saarto oo ah Windows 10 midkii ugu dambeeyay ay Microsoft soo saarto 2015
kaasina ay ku joojisay inay Microsoft system kale oo Windows 10 dhaafsiisay inay soo saarin. Sometimes way bedeli kartaa macnaha fikirkayga, laakiin waxay tiri waa kii ugu dambeeyay. Laakiin kan ayaan update ku sameynaa, kan u baan sanad walba cusboonaysiinayna oo mid kii ka duwan aan ka sameynaa. waxaa kaloo jira Mac OS oo ah mid ay soo saarto shirkadda Apple oo iska lahaa ninkii dhintay kulli waa gaal Allah naxariisto lama oran karo, ninka loo yaqaan Steve Jobs oo ah ninkii aasaasay shirkaddan Microsoft haddii aan ku qorno xagga oo nin waxa Felix iyo cancel waxa ahaa mooyaane waxba dilay ayaa la yiraahdaa taariikhdiisa, laakiin success ah ayuu ahaa oo nolosha horumar ka gaaray xagga marka tiknoolajiyada waa shirkadda isaga ayaa abuuray isaga iyo rag kale, laakiin shirkaddan oo kaliya ma lahayn Netflix to kalo kartoomada soo saarta Pixel iyo wax la yiraahdo uu lahaa. ka gudub waa system-kana waa system loo yaqaan Mac OS kaasoo inta badan dalka gudihiisa laga isticmaalo. Sometimes way jirtaa dib soo shirkadaha oo kale markay xaysiinayaan wax soo Telesom ama Somtel Hormuud Golis oo kale markay waxay siinayaan kombiyuutarada inta badan xaysiiska oo qaarkood ay kamid tahay, laakiin waa aad expensive, waa lacag qaaliya 1500 1300 $1200 ayaa la siiyaa. waa system oo kombiyuutarada aad loo isticmaalo dadka waxaana isticmaala. Sometimes waxa la yiraahdaa maahmaha haddii aad Windows isticmaalayso sometimes you are normal, haddii aad isticmaalayso kan waa sometimes you are better oo waxa tahay qof rich ah macnaha lacag badan, haddii aad Linux isticmaalayso qof experience ayaa tahay. ka gudub kan waxa loo isticmaalaa system Apple laptop ay soo saarto. Sometimes waad ku shuban kartaa kombiyuutarada kale laptop-giska HP iyo Toshiba oo kale system-kooda soo dejisan. Mac OS-ka qaybo kala duwan uu ku leeyahay, Linux-ka ku leeyahay, Limo ku leeyahay, ku kale waxa la yiraahdaa Yama oo kaasi ah ka ugu dambeeyay ay soo saartay shirkaddu iyadoo ku base gareysta laptop-yada hadda soo saarto ee cusub. waxaa kaloo jira Linux oo ah mid ay inta badan isticmaalaan dadka expertiga security-ga ku ah oo wax ku taageerayaan qaybihiisa kala duwan. waxa kamid ah sida Linux Ubuntu oo kale, Kali Linux, Packbox ku kale oo leeyahay, Paratos ku leeyahay, way badan yihiin qaar badan ayaa kamid ah oo loo isticmaalo. Ubuntu ku leeyahay oo kale uu jira oo ah Linux open source ayaa sameeyay waxaan malay Teford Linux saas oo habaan malay magaciisu ninkaas ayaana create gareeyay system-kan. waa open source, qof walba oo dunida kamid ah hadduu yaqaan luqadda lagu dhisay waa uu dhisan karaa ku isaga qaasa isagoo open source-kiisa helaya oo ku shubanaya kombiyuutarkiisa dhisan karaya nooc walba oo dhisan kara. kan waxa loo isticmaalaa inta badan waxay isticmaalaan serverada ama kaydiyaasha shirkadaha waaweyn ee kamid yihiin Google, Facebook, YouTube oo kale. kaydiyahooga waxa macluumaadkan kumanaankan ee video ee la soo dhigay YouTube meesha lagu kaydiyo ayaa isticmaasha si looga ilaaliyo dadka hackersku inay xadaan macluumaadka oo ay crash gareeyaan amba ay ka delete gareeyaan Google shirkadii YouTube hadhow tolale macnaha dhaxta database badan iyo macluumaad badan ay shirkadda ka dhacdo. saala ajligan marka aad ku shubato systemka Linux computerkaaga waxaad iska ilaawaysaa maskaxda mar walba ka saaraysaa virus inuu na soo galin computerkaaga, waayo virus ba ma yaqaan system-kan Linux loo yaqaan. wuxuu baa taageerayso wuxuu virus ku sameeyaa laakiin isaga lagu ma sameeyo. Sometimes waxa la sheegaa in imika virus cusub oo isaga taageeranaya oo effect gareynaya uu jiro, laakiin inta badan lama helin virus caadi oo taageeraya oo sida Windows oo kale. virusyadu aad ugu nugul yahay marka loo eego Mac OS oo kharash badan yahay la geliyo isaga oo inta badan way ka fursad badan yahay macnaha aad ayuu uga nugul yahay in Windows 10 uu soo galo viruska Mac OS. waayo Mac OS laga yaabo dhif iyo xad inaad virus ku aragto, laakiin kan inta badan virus waa soo gala oo affect gareeya. laakiin waxa la isticmaalaa antivirus sida Kaspersky, Avast, Avera kuwaas oo dhan ayaa la isticmaalaa si aad uga hortagto inuu virus soo galo. intaasaan maanta casharkan ku joojin doonaa. haddii aad wax su'aalo qabto fadlan commentiga hoose YouTube noo soo dhig. waxaan ha ilaawina inaad subscribe tiraahdo, like siisid, aanad la share garayso asxaabtaada si ay aqoonta kula wadaagaan. waana koriskeeni halka baro technology-da waxaana idin soo furtay ama course idin bixinaysa waa
channelka iyo shabakada iyo pageka loo yaqaano Tajmaal waan iyo Amiin Cabdiya intaasan maanta casharkeenan 1.2 casharkeen labaad aan ku dhameystirnay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.